fariinta ka hortagga caabuqa coronavirus. qadarta eebbe waa halkeedee waxaana la gudboon in la muujiyo dadaal iyo taxadar ku aadan xanuunka coronavirus. qodobada looga baahan yahay qofka caafimaadka qaba: ka fogow meelaha saxmadda ah ee dadku isugu yimaadaan. maalmo yaree wax isla cunista. jooji salaanta, kor ka salaan oo ku dheh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. jooji habsiinta, jooji shumiska. gacmaha ku dhaq saabuun muddo 3 daqiiqo ah. gacmo wasaq ah ha ku taaban indhaha, afka iyo sanka. ugu yaraan 1 mitir ka fogow qof kasta oo qufac iyo hindhiso aad ku aragto. marka aad wax qaadayso, isticmaal safaleeti amaba mandiil. lacagta xaanshida ah iyo wax dad badan soo maray ka fogow. marka aad wax tirtirayso sida dhul, xafiis, kombiyuutar ama wax kale, gacanta wax gasho. haddii aad gashato maasgaro waa arrin fiican. qodobada looga baahan yahay qofka xanuunsan: ha ku hindhisoon ama ha ku qunficin gacantaada. isticmaal safaleeti amaba mandiil. horayna ka tuur. ha booqan meel ay dad joogaan. haddii aad xanuun dareento, tag goob caafimaad. haddii aad isku aragto qandho, qufac ama neefta oo kugu adag, guriga iska joog oo waco dhakhtar. haddaba sidaas oo ay tahay, dhimashada cudurka coronavirus waa 3 ilaa 2%, waxaana u badan dadka da'da ah oo horay cudurro u qabay. 80% dadkii laga helay xanuunkan waa ay caafimaadeen, waana laga bogsoodaa. carruurta iyo dhallinyarada inta badan xanuunka waa uu ku yaryahay. fariintan wacyigelinta ah la wadaag ehelkaaga iyo asxaabtaada aad jeceshahay.